oo aan ka arkay amaanka aan kula socday aan ugu dul qaadanayay waxyaabo badan oo maanta soo baxay isagii baa isku markaati furaya gacanteedu kan ku jira maanta gacanteyda oo aan ka arkay oo aan kula socday oo aan ugu dul qaadanay kuleeyay oo waad isku markaati furaysaa marka muuse dalkii baabinayaad kula socotay wanaad ka aragtay ya muuqaal hallaygiisa la sheegaray xilligan waliga muuqaal ma duubin wallahi waa tobankii sababta u duubay ma garanaysa beenta kama saxday laan fashiliyo isma taagaan ma garanaysa ya wuxuu ku leeyahay wixii nala dhaariyay hor ilaahay uu ka beeray oo dhaartii uu ku gudbay ku leeyahay waxaan ku dhaaranay ilaahay hortii baan la tagayaa inuu madaxweynuhu dhaartii la dhaariyo dad iyo dal iyo diin iyo dastuur aan u dhaaranay inuu intiba ka baxay hadalka markuu maanta yiri dhowr toddobaad ka horna muxuu inagu lahaa dhacdo aniguna wax taaganahay halkii hogaamiye qaran baa taaganahay oo xisbi maanta kulmiyana musharax kamahi wadana u socdaan ma jirto wuxuu lahaa oday qaran baan ahay siyaasadda waan ka fadhiistay kulmiyana kama mid yihiin wadana kama mid oday qaran baan maanta wuxuu leeyahay muuse dhaartii uu jabiyo muddo dheer baan dhaartii uu jabinayay oo magaranaysan ugu dul qaadanayay oo marka dalaha oday qaran baan siyaasadda waan ka fadhiisanaya ma adigoo og dhaartii inuu jabiyay bas siyaasadda ka fadhiisanaysa miya maanta hurdada waa laga soo kiciyay ka soo kiciyay noo sheeg hurdada waa laga soo kiciyay dadkan maarta reer Soomaaliya majority waxay dhageysanayaan iskama shaandheeyaan ma eegaan waa bishan gudaheeda ninkan muxuu yiri ma yiraahdaan taba yiraahdaan dhowr su'aalood baan ku weydiinaya ugaas ka yar wuxuu ku leeyahay isbedel baan rabaa isbedel waa inuu rabo waxa ka horeysa muxuu aaminsan yahay ma goon istaaga Soomaaliland buu aaminsan yahay midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliland buu aaminsan yahay qodob midda labaad ku su'aalahay waxay tahay ninkii saylici la yiraahdo toddoba dhowr cisho ka hor kiina ugu lahaa siyaasadda waan ka baxay wadani kuma biirin kulmiye kuma biirin oday qaran baan hay siyaasad kama sheekeynayo waa maxay sheekadan maanta ula soo toosilay muuse qarankii wuu weeci wuu baabi ma dhaartii noo dhaariyay xitaa wuu jajabiyay ku leeyahay muddo dheer baan ugu dul qaadanay oo aan iskala socday yaa hurdada ka soo kiciyay waa su'aashi labaad ya had ya jeer marka maartay xilliyada kulaylaha maartay kulaylaha waxa dhulka hoose iyo meel godadka ka soo baxa maartay abba haloo dhan way kulku ma adkeysan karayaan tan iyo tii heshiiskii MMU daa lagu dhawaaqan ganacsi godadkaas wacan looga soo baxay ugu horreyn wasiirkan waa kiis casilay inaan maanta xilkayga halkaa ku soo koobo haddii la yiraahdo oo iska casilo ha isma casilay markuu casilay ku biiray dalka miyuu ka baxay may wadani buu galay dalaq taamicneedu waxay tahay wadana aqoonsiga ma ogola kana aqoonsiga baan uga soo carray aqoonsi buu raadiyay kan ayaan galaya weeyay sheekadooda ma fahant inna muuqaalka inoo la garay inoo sheer garay eeg mar yar baan ka wax yar baan kugu fahansiinaya oo aad wax ku fahmayso ugaaskan la dhigayso waxaan dadkayga ugu baaqayaa inaan isbedel u baahanahay oo aan u baahanahay in musharaxiinta Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ero wuxuu ku leeyahay isbedel baa loo baahan yahay way shacabku isbedelka u codayaan oo Cabdiraxmaan Curre u codayaan oo xisbiga wadana u codayaan wata salaadu heesta gal way kala horeysaa inaad isbedelka Soomaaliland iyo inaad ka hadasho kursigan madaxtooyada cidda ku habay waxa ka horeysa horta marka koobaad ana kan ma aaminsanta jawaabtu waa maya halka la dhigayso ay maamulka Muuse Biixi oo dadka dhibaatada ku hayay inuu ka baxo dhulka iyaga wuxuu yiri waa in gobolka Awdal la xoreeyaa yaa lagu xoreeyaa Soomaaliland yaa la keenayaa Soomaaliya dhinaciisa yaa fadhiyay master gala dagaalka fadhiya intaasoo kaliya ma muxuu ku daray marka gobolka la caalamay calanka Soomaaliya meel kasta way laga taagaa jaqafaad waa xoroobaya ummadii Soomaaliyeed iyo calankii Soomaaliyeed meel walba buuraha meel walba waan ka taagaynaa intaasaan inii sheegayaa maanta ugaasku maxaa bargo hore badal loogu celiyaa Awdal dowladda Sinayo celisay midnimada Soomaaliya iyo wax midnimo iyo waxa soo aaminsan yahay su'aashu waxay tahay ugaasku waa kan leh isbedelay
waxaan dadkayga ugu baaqayaa inaan isbedel u baahannahay oo in musharaxiinta cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro markuu leeyahay isbedel Soomaaliya waan isbedel ka dhacaa su'aasha isweydiinta mid waxay tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed buu ka tanaasulay macaalamadu laha meel walba laga taago ka tanaasulay masxoreynta awdal buu ka tanaasulay waa maxay waxa wadan uu ku taageeray ka dhaxalkay mise wadan baa waxaas ba ogol bade ya waa su'aal u baahan la isweydiiyo su'aasha labaad waxay tahay saylici maalin dhawada ka yiri saaxadda siyaasadda waa ka fadhiistay oo qaran baan ahay oo wadan kama mid maanta maxaa ku kalifay inuu yiraahdo Muuse aflagaada kala dulco madaxweynihii hogaaminayay oo taladii qaranka halkuu miray ummadda reer Soomaaliya ogtahay sidoo kale maxaa ku kalifay inuu yiraahdo maalintii sida loo dhaariyay isla maalintiiba dhaartii uu jajabiyay Muuse uu jajabiyay sida dadkan uu iskala socday inuu yiraahdo waa su'aasha labaad su'aasha saddexaad waxay tahay isla maanta maxaa keenay ugaaska iyo saylici isku mar inay wada hadlaan oo ay yiraahdaan wadanaha loo wada codeeyo wadan maxay ku arkeen oo kulmiye kaga duwan yahay maxaa soo kordhay walaalayaal in wax la isweydiiyo ceeb ma ya xisaab xilma la hadaan la xumaynay faantay ugaaski ayaa tanaasulay oo magaci Soomaaliland xambaartay calanka Soomaaliland aaminay oo qadiyada Soomaaliland aaminay mise wixii ugaasku wuxuu aaminsanaa buu wadana ka dhaxarka su'aal baa ku weydiinaya imika haddii Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse ay yiraahdaan wadana hala doorto maxaad ku jawaabaysaa ninka reer Soomaaliland markii wax la soo boos Allah wadan war Soomaali weyn aka yaa caybad oranaysa Soomaa waa simple equation haddaba ugaaskii calanka Soomaaliya aaminsanaa midnimada ummadda Soomaaliya aaminsanaa garaajamaan in ciise fadhii jiray oo jiray xoreeya maxaa maanta wadana uu ka wariyay ma shaqaale waa xoroobaya ummadii Soomaaliyeed iyo calankii Soomaaliyeed meel walba buuraha meel walba waan ka taagaynaa waa su'aashaas mars afar jeer baan ugu soo leeyahay ku soo celin ma laha iyo maxaa sidoo kalena saylici maxaa soo kiciyay anyway halka waxaad ka fahmaysaa duulimaad fara badan inuu jiro cabsi fara badan inay jirto in kulmiye mar labaad kala soo noqdo oo Muuse bixi kursiga mar labaad ku fadhiisto oo heshiiskii amamiyuudaha ka mid dhaliyo ya ayaa kaaga muuqanaysa mid kalena waa kugu daraya uurka waxa ku jira maaragta walaalo baa afku soo tufaa meel kale fadaakeegi Dr. Maxamed Cumar soo garanaysa markastuu Soomaaliland ka hadlayo wadan uu ololayo muxuu yiraahdaa midnimada ummadda Soomaaliyeed jamhuuriyadda Soomaaliya Soomaaliland afkiisa laga arki maayo maxaa afka Soomaaliya magaca Soomaaliya maxaa afku ugu shaqay anyway waxaan kaloo arkay Cabdiraxmaan Ciro oo ku soo celinayo leh saylici baa afka awdal ku hadli kara oo ugu sareeya sidoo kale wuxuu lahaa ururka loo codanayana isaga jaan goynaya cid kale codka madaxtooyada iyo kawrnimada awdal kama hadli karto lahaa waxay la tahay inaanu qof kale xaq u lahayn inuu reer awdal u yeeriyo cid ay dooranayaan xirfeeku matalayo gobolka awdal marka wuxuu ka jawaabayaa hadalkii Muuse bixi oo lahaa hilac loo codayo hilac oo hilac soo saar sidoo kale wuxuu ka jawaabayaa hadalkii professorka ee ahaa kulmiyaha loo codayana hilacna loogu rido isku soo wada duubo ujeedka iyo ajandihiisa Ciro naxariis uma hayo awdal laakiin socodka madaxweynenimo ayuu shaqaysanaya waxa ugaaska uu wacay oo yiri soo hadal وعدك مدحويني لماذا sidoo kale wuxuu saylici u yiri inta yar qaado hadal loo waxa weeye codka madaxweyne nimada mid kalena waa ku saalaya saylici tusaale haatan ku saylici bila kahor waa kii ku haystay saacin xilka uu hayo mar kale inuu soo sharaxo doonaysay ilaha waan soo sharaxay saacin waa ku isku qabsaday muddo dheer oo khilaaf jiray waa kii markii laga awood batay yiri waan tanaasulay inaan kayga haduu ila tartamay isagu uu soo joogsaday in aanu ka tanaasulo mudday su'aashu waxay tahay hadii Muuse bixi uu ka baxay dhaarti jabiyay oo wuxuu sameeyay maxaad adigu doonaysaa mar kale in xisbiga kulmiye uga simid ahaato oo musharax u noqoto
oo dowladda aad ugu soo noqoto maxaad adigu raadinaysaa waa su'aalo loo baahan yahay simple question lama ka dhaxan aqaa walaalayaal meesha kursi jacayl iyo joodooyin kale iyo ka hortagga MU gabayiga muuqanaysa waa la soo bahaystay